dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah maxaabiis la kala qabsaday hub la kala furtay ayaa maanta ka dhashay dagaallo ka kala dhacay galbeedka mudug iyo sidoo kale dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida si gaar ah deegaan lagu magacaabo Dacawaley soo dhawaada saaxiibayaal wararkii ugu dambeeyay ayaan eegi doonaa ee dagaaladaas iyo kulamo ka socda wadanka Eritrea isla markaana u dhaxeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha wadanka Eritrea Asiyaas Afwerki Cumar Guuxayaan hadii uu muuqaalka soo gaaro si shirkada saxibdeena la sii wadaaga qaybta hoose ee faaladan aragtidina wala wadaaga markale soo dhawaada aynu ku bilowna dagaaladii maanta dhacay si gaar ah gobolka mudug aynu ku hormarnay deegaan lagu magacaabo Jicboor oo kamid ah deegaanada hoostaga gobolka mudug ee dowlad goboleedka Puntland waxa la warinayaa in maanta uu ka dhacay dagaal aad u xoogan oo la isku soo noqnoqday muddo 4 jeer ah kaasi oo uu ka dhashay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac muuqaalo iyo sawirro la baahiyay ayaa muujinaya meydad daadsan halkii lagu dagaalamay dhinacyada dagaalamayna waxa la sheegay inay adeegsadeen hubkii ugu cuslaa oo ay wateen oo deegaanadii ay ku dagaalameenna markaasi ay isku horfadhiyeen maalmihii la soo dhaafay ay maanta gacanta iskula tageen halkaas waxa ka dhashay dhimasho gaaraysa ilaa iyo 10 ruux halka tira intaasi ka badan laga soo wariyay inay ku dhaawacmeen loona kala qaaday magaalooyinka Galdogob iyo sidoo kale Gaalkacyo oo ah labada magaalo ay dhinacyadan ka soo kala jeedaan dagaalkan waxa la sheegay inuu yimid kadib markii maleeshiyad hubaysan oo Galdogob ka soo jeeda maalinimadii shalay nin xoolo dhaqato ah oo Gaalkacyo ka soo jeeda ay ku dileen deegaankaasi Jicboor ugu dambeynna maanta ayaa gacanta la iskula tagay dagaalkoodana halkaas ayuu ka qarxay inkastoo hadda xaaladdu la sheegayo inay degan tahay laakiin mar walba laga cabsi qabo in mar kale ay dagaalamaan dhinaca kale deegaan lagu magacaabo Dacawaley oo hoostaga gobolka Afdheer si gaar ah degmada Xarshin waxa ay wararku sheegayaan in maanta dagaalkii uu xumaa uguna xooganaa uu ka dhacay kadib markii subaxnimadii hore ee saak dagaal 4 jiha ah lagu soo qaaday deegaankaas oo ciidamo la sheegay inay ka tirsanayeen Liu Police ay ku soo qaadeen dadkii deegaanka oo iyagana feejignaa ayaana la sheegay in waa iska caabin xoogan ay sameeyeen taasi oo keentay in dagaalku uu qaato muddo saacado ah halkaasna waxa ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac geerida ilaa iyo 20 ruux ayaa la xaqiijiyay oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay halka maxaabiis lagu kala qabsaday sida lagu soo bandhigay warbaahinta bulshada ay ku wada xiriirto ama aaladaha social media loo yaqaan deegaanada Belegubadle iyo kuwa kale oo dhowr ah ayaa la geeyay dhaawacyada iyo ragii maxaabiista ah ee la soo kala qabsaday halka dowlad deegaanka Soomaalida deegaano kale oo dhagax buur iyo meelo kale ay kamid yihiin isla sidaas oo kale iyagana loo geeyay wararku waxay sheegayaan in odayaal dhaqan halkaas ku sugnaa ilaa iyo hadda qaybtood aanan meel lagu ogeyn halka kuwa kale la sheegay in Somaliland ay qabsatay oo ay waliba soo furatay sidoo kalena ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida si gaar ah dagaalka kuwa galay ayaa xaqiijinaya inay hayaan odayaal dhaqan oo ka soo jeeda Somaliland wararka halka ka imaanaya hadda waxa ay sheegayaan in xaaladdu degan tahay laakiin marka la fiiriyo xaaladda sansaan colaad ay muuqato mar walbana laga cabsi qabo in markale dagaalka halkaas uu ku dhaxmaro labada dhinac dowlad deegaanka iyo Somaliland wax war ah oo ka soo baxay dagaalka ka hadlayaan ma jiro dhinaca kale kulamo xasaasi ah ayaa ka socda magaalada Asmara ee wadanka Eritrea kaasi oo u dhaxeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Eritrea Asiyaas Afwerki maanta waxa halkaas gaaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoona walaac xoogan Eritrea ay ka muujisay heshiiskii dhawaan Ankara ay ku soo galeen dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya kaasi oo ku saabsanaa in qayb kamid ah badda cas la siiyo dowladda Itoobiya oo ay ka samaysato arrimo ganacsi dowladda Eritrea sarkaal u hadlay oo waliba laanta afka Amxaarada ku hadasha BBC-da waraysi ayaa sheegay in dhabarjab weyn ay ka muuqato dowladaha Masar iyo sidoo kale Eritrea kadib markii Soomaaliya ay u heshiiyeen inay difaacaan inay badda ka difaacaan Itoobiya sidoo kale madax banaanida dhuleed ay difaacaan laakiin markii Itoobiya iyo sidoo kale Soomaaliya heshiiskooda uu soo ifbaxay labada dowladoodba ay go'aansadeen inay hoos u dhigaan waxyaabihii ay hore ugu heshiiyeen dowladda Soomaaliya ayaa heshiisyo difaac oo dhowr ah soo gashay saddexdan dowladood ayaana isku arka inay cadow isu yihiin waa Masar Eritrea iyo sidoo kale Itoobiya Abiy Ahmed magaalada Addis Ababa ee caasimadda wadankaas waxa uu kulamo kula leeyahay madax ka socota madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya si gaar ah wasaaradda arrimaha dibadda wasiir dowlaha wasaaraddaas ayaana hogaaminaya iyo taliyaha hay'adda NISA qaahira waxa ku sugan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo xubno kale oo dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan si ay heshiis ula soo galaan dowladda Masar Eritrea maanta waxa gaaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa 3 wadan oo cadow isu arka sidoo kalena dowladda federaalka Soomaaliya 3 safar ay ku kala bixisay saddexdoodana waxa ku kala sugan madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda lama oga Eritrea go'aanka ay qaadan doonto halka qaahira ay kor hore sheegtay in Itoobiya hadii ay badda cas helayso qayb kamid ah ay qayb ka noqon doonaan howlgalka inkastoo warar soo baxay ay sidaas sheegayeen xogaha la helayo